guddiga komishanka doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa ay ka kala direen shaqaalihii agabkii iyo sidoo kale waliba gaadiidkii ka howlgalayay goobaha ay sida rasmiga ah maalinta biriya uga bilaamayso cod bixinta doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo sidoo kale baarlamaanka goobaha shaqaalahan loo kala diray oo ahay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudaha degmada Burco ayaa goobta lagu kala diray oo ahay dugsiga Sheekh Bashiir ayaa waxa goobjoog ahaa mas'uuliyiinta sare ee guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland mas'uuliyiinta maamulka gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay xisbiyada qaranka ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadashay Marwe Kartuun oo ka tirsan mas'uuliyiinta sare ee guddiga komishanka doorashooyinka ee Somaliland bishu tahay Soddon waxaanu ku sugannahay iskuulka Sheekh Bashiir magaalada Burco oo aanu ka radayno qalabkii iyo gaadiidkii iyo shaqaalihii ku hawlgeli lahaa doorashooyinkaas oo ah laba doorasho isku sidkan waa doorashada wakiilada iyo doorashada deegaanka hore Somaliland kuma dhicin in laba doorasho isku sidkan oo baaxadda ay ka qabsanto culeyskeeday leedahay guusheedana way leedahay labada doorasho waxa weeyaan qaabka loo kala codeynaya qofka u sharaxan wakiilada wuxuu leeyahay calaamad ama sawir buu leeyahay qofka u sharaxan golaha deegaankana wuxuu leeyahay number marka qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato labada waraaqoodba dabadana intuu la gala halka loogu talagalay in lagu codeeyo uu xariiqo qofka uu doonayo wakiiladana calaamada uu eego qofka kale ee deegaankana number buu eegaya halka loogu talagalay waa afar gees warqad qofku arki doona afar geeska qofku dhinacna lama rabo inuu u dhaafo waxa soo raacay qofka aan garanayn ama aan akhriyi kareynin wuxuu la imanayaa gudoomiyaha goobta ka bacdi waxa uu calaamadinaya gudoomiyaha goobta gudoomiyahana wuxuu tusayaa muraaqibiinta saddexda xubnood ee ka socda xisbiyada ayuu tusayaa warqadii wuxuu oranayaa hebel wuxuu u codeeyay qofka noocaas calaamadiisana waa sidaas ugu dhigay sidaas ku noqonaysaa wax lagu wada kalsoon yahay laba qof baa loo ogoliyay inay codeeyaan waa qofka kaarkiisa ta lafta ah ee cod bixinta iyo qofka haysta warqada shahaadada ee buluuga ah ee la siiyay xilligii kaar bedelka haddii aanu nahay gobolka Togdheer waxaan halkan ka soo jeedinayaa anigoo baro saabkii ah number 1 in lala shaqeeyo komishanka qaranka ee ku hawlan garsooridda iyo doorashada isku sidkan la shaqeyso dadka ku ridaya hala shaqeeyaan si aanay nabadgelyadu wax maartay buuq iyo problem noo gelin hore waynu soo wadnay nabadgelyo noogu dhacday tan insha Allah nabadgelyo noqon doonta waxaan leeyahay booliiska dadweynuhu la shaqee laftoodu campaignerska ahana waxaan sheegaynaa inay dhamaatay oo ay maanta tahay in sanaaduuqda codka lagu rito nin walibana wixii uu ku rito ayaa insha Allah taala uga soo baxaya waxa dhamaaday isriixriixi baa dhamaaday waxa kaliya inoo haray waxa weeye kala tirsigii waraaqaha ayaa inoo haray Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan wararka telefishinka Universal magaalada Burco.